dagaalkii looga adkaaday Axmed Madoobe ee Jubbaland ka dhacay waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada Kenya oo dhan ciidamadii Axmed Madoobena waxay halis gelinayaan nafta boqolaal qof oo kun oo Mandheera ku nool oo Kenya ka soo jeeda waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad rasmi oo la xiriira Kenya qorshaheeda waa nuucma ma ciidamadii Jubbaland ee ka soo baxsaday balad xaawo ee ku sugan Mandheera ayaa lagu wareejin doonaa dawladda ma laga saari doonaa ma waxa diyaarad looga qaadi doonaa Mandheera oo Kismaayo la geyn doonaa waxaan kula wadaagi doonaa warbixin dheer oo laga qoray arintaasi iyo sida xaaladdu ay tahay Axmed Madoobe wadnaha iyo farta ku haya Kenya waxa uu ka baqdin qabaa inay dhabar jabiso oo ciidankaas ay ku wareejiso Cabdirashiid Janan iyo saraakiisha dawladda ee gobolka Gedo ku sugan aragtidaada qaybta hoose noogu reeb muuqaalka la aksar shirgareey dawladda Kenya ayaa mar kale waxa ay ka hadashay arrimo xasaasi ah oo la xiriira dagaalkii ka dhacay balada xaawo ee u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland kaas oo waa iminka xiisad cusub ka dhex abuuray guud ahaanba gudaha dalka Kenya madaxweyne ilaa maayer magaalo ayaa is haysta waxaana aad loogu badinayaa in dawladda Kenya ay dhagaha ka fureysato baaqyada caalamiga ee ku aadan arrimahan wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ninka la yiraahdo Markomen waxa uu kolkii hore ka hadlay madal amni oo munaasabad ay ka dhaceysay xilli uu ku sugnaa magaalada la yiraahdo Kikimaga waxa uu sheegay in dagaalka dhex maray ciidamada Soomaaliya ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee ka dhacay xuduudda aan halis gelin amnigeeda isla markaana xaaladdu ay ahayd mid wanaagsan wasiirku waxa uu tilmaamay in shacabka Mandheera ay ku sugan yihiin xaalad amni oo degan isla markaana aysan halis ugu jirin dagaalka xuduudda ee u dhaxeeya ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland xitaa weerarada kooxda Al-Shabaab waxa uu yiri halis kuma ahan guud ahaan ammaanka Kenya wasiirka ayaa si weyn u dhaleeceeyay mucaaradka dalkiisa oo ku tilmaamay in siyaasadda ay ka dhex raadinayaan amniga gaar ahaan xaaladda Mandheera sidoo hadalka u dhigay waxa ay banaanka u soo baxaya iyaga oo si aanu xadidneyn uga hadlaya arrimaha amni waa maxay nooca siyaasadda ay ka dhex raadinayaan arrimaha noocan ah dhab ahaantii nasiib darro ayay ahayd in dad noocaas ah ay weligood ka mid noqdeen golihii amniga qaranka ayuu yidhi Margon oo ah wasiirka amniga gudaha hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dhawaan qayla dhaan xoogan ay ka soo yeertay shacabka ku dhaqan magaalada Mandheera ee caasimad u ah gobolka Waqooyi Bari Kenya kuwaas oo dhigay dibadbax weyn oo ay uga cabanayeen ciidamada Jubbaland ee looga adkaaday dagaalkii balad xaawo ka dhacay kadibna ku farxaday magaaladaas dadweynaha ayaa dibadbaxyo dhigay waxaana ay dalbadeen in si degdeg ah halkaasi looga saaray ciidamada Jubbaland deegaankaasina laga saaro lana masaafuriyo isla markaana lagu wareejiyo dawladda Soomaaliya iyagoo uu ku eedeeyay inay dhibaato badan ka geysteen gudaha gobolkan gaar ahaan magaalada Mandheera maalmihii ugu soo dhaafay ciidamada maamulka Jubbaland ayaa eedeymo weyn wajahaya waxaana lagu eedeynayay in baarihii ay dhacayaan ay cunayaan dadka ay dilayaan miinooyin ay ku dhaxaasayaan goobaha qaar sidoo kale mararka qaar ayaa la sheegay in rasaas madaafiica ay ridayaan taasi oo waxyeello u geysanaysa shacabka sida hadalka ay u dhigeen dadka deegaanka maamulka Mandheera gaar ahaan gudoomiyaha magaalada Mandheera ninka la Maxamed Khaliif ayaa isna soo saaray warbixin dheer oo arrinkan uu kaga hadlay waxaana uu tilmaamay in xaaladdu ay adag tahay loona baahan yahay in la badbaadiyo shacabkan maadaama xaalad adag ay ka taagan tahay guud ahaan Mandheera oo ay wajihi karaan halis weyn iyo dhibaato weyn wararka ugu dambeeyay sidoo kale waxay tilmaamayaan in hadda dawladda Kenya ay qorsheynayso inay saarto dhammaan ciidamadan oo ay banaanka geyso taasi oo sidoo kale ka dhigaysa mid muhiim u ah dhinacyada waayahay wararkan aan u laaban doonaa dhanka kale haddii aanu eegno maanta xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad weyn oo lagu daafurayay ama xariga looga jarayay telefishinka iyo guud ahaanba warbaahinta dawladda hoose ee Xamar taasi oo muhiim u ahayd door fiican ka ciyaartay waayihii la soo dhaafay tan iyo magacaabistii Mugaab kadib warbaahintu waxa ay ahayd mid aad loo qalabeeyay isla markaana waqti badan la geliyay iyada oo xarag jarka uu ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mugaab waxa goobjoog ahaa agaasimaha waaxda warfaafinta ee maamulka gobolka Banaadir Xuseen Cabdullaah Maxamed sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose xogayaha dawladda hoose iyo saraakiil kale ayaa halkan ku sugnaa waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ammaan kala duldhacay agaasimo Xuseen maadaama waqti badan iyo juhdi uu geliyay dhismaha ugu hore waxaan ku hormaraynaa khudbadda agaasimo Xuseen uu jeediyay maadaama uu ka hadlayay xaaladda isagoo ballan qaaday in shaqaaluhu ay heli doonaan mushaaraad isla markaana maamulka gobolka uu diyaar u yahay sidoo kale gudoomiye Mugaab ayaa isna ballan qaaday inay dabari doonaan oo ay xalin doonaan mushkiladda dhaqaale ee la xiriirta ama ay helayaan wariyaasha ka howlgala xarunta TV iyo raadiyaha gobolka Banaadir alxamdulillaah rabbil caalamiin dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka سجار وحنا سلام مدح مامور جوبل كبنادر وجوه الجدومية جوبل كأنه ضوء مجال مقدسه دكتور حسن محمد حسين منقاب حكاية يا جاسمياش يا دمان بهذا ورفافنتا
mudana guddoomiye maanta waxay noo tahay farxad iyo sharaf weyn in xaruntii ugu horeysay oo waaxda warfaafinta oo maamulka gobolka Banaadir ah xaraga aan ka jarayno warbaahintan adaa aas-aasay oo markii ugu horeeyayna aas-aasay markii aad aas-aastay wixii ka dambeeyayna waa shaqaynaysa laakiin ma jirin horumarin iyo qalabeen lagu sameeyey maalintii aan magacaawdo ilaa hadda aniga iyo dhammaan waaxda warfaafinta madax waaxidyada oo madax qaybeedyada iyo dhammaan shaqaalaha kale annagoo isku duuban waxaan waqtigeena ugu badan aan gelinay sidii ay waaxda warfaafinta u yeelan lahayd meel macquul ah oo lagu shaqayn karo oo shaqada baaxadda leh oo gobolka Banaadir ka socota meel dadku lagu gaarsiin karo bulshadii ay gobolka la soo xiriiri karaan sidii loo heli lahaa waqti gelinay waxaa kaloo aan waqti gelinay sidii loo heli lahaa qalabkii ku habboonaa oo ay warbaahintu isticmaali lahayd maadaama ragga halkan jooga iyo gabdhaha jooga ay ahaayeen dad diyaarsan ayaan waqti gelinay annagoo taageeradaada haysano iyo garabkaaga oo aan kaaga mahad celinayno waxaan soo gadnay qalabkii ay u baahnaayeen warbaahinta gobolka Banaadir ama kaamirooyin iyo kombiyuutarro iyo qalab leef wax kastoo ay u baahnaayeen maanta diyaar u yihiin wayna haystaan sidoo kale waxaan u diyaarinay meeshii ay ku shaqayn lahaayeen oo istuudiyaashii la iyo nooc kasta oo goob shaqo oo warbaahin ku shaqayn lahayd waa u diyaarinay maanta waxaan joognaa marka meel wanaagsan oo shaqada warbaahinta gobolka Banaadir ay ka socon karto dadkuna ay nagala socon karaan aan joognaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda gobolka oo ayagana noo horay waqti haddii aysan guddoomiyaha gobolka Banaadir raalli ka ahaan lahayn oo waqtina gelin lahayn maanta halkaas oo ma gaari lahayn abaalan kaga haynaa guddoomiyaha warbaahinta oo dhan abaal kaga haysa ragga iyo gabdhaha halkan joogo waxaan u imid gabdho iyo wiilal oo wariyaal ah oo u baahan inay gobolka Banaadir shaqo ka qabtaan oo muddadii halka ay joogeen wax badan oo ay naawilayaan heli waayo fursad u heli waayeen u imid oo khibradoodii la aqoontoodii leh ayagii aan isku toosiyay mudana guddoomiye ayaga marka meesha aan arkaysid wax ka dhigay gobolka Banaadir TV-giisa ama qaybtii social media ee muddooyinkan dhan la arkaayo horena aan loo arki jirin dadkana weydiinayaan television ma jireen laayeen hor dadkaana kiciyay haddii ayaga aysan joogin intaan maanta aan qabanay ma qabsoomi lahayn marka guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa qoraxa la taagan yahay gobolka Banaadir warbaahintiisa annaga saddex ujeedaan ka leenahay waxa waaye marka ugu horeyso shaqada magaaladan ka socoto oo dawladda hoose ee wado in dadka la gaarsiiyo ujeedada kale oo aan ka leenahay waxa waaye bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda gobolka Banaadir inay helaan xog ku kala qaadan karaan iyo tan saddexaad oo ah in halkaan aan ku abuurno aragtiyo iyo hal abuuro inaan la nimaano oo wax ka duwan wax Soomaaliya ka jira inaan halkan ka abuurnaa rabnaa ama ay ka dhaqan galaan oo warbaahinta kale wax uga duwanaan maadaama warbaahintoodu ay tahay codsiga ugu dambeeyo halka aan kaaga soo jeedin madaxda guddoomiye waxa waaye dadka halkan jooga waxaa ku jira gabdho iyo wiilal oo hal maalin hadday maqnaadaan shaqada la tabay qaarkood 2 sano shaqeeyo qaar 1 sano shaqeeyo qaarna ka badan ay joogaanba haddana aan xuquuq lahayn ayagana adiga u guddoomiye gobolka Banaadir adigana u ah maxaan ku yiraahdaa waalid waxay ka rabaan inaad sidii aad uga farxisay waaxda nadaafadda oo aad uga farxisay ciidamada ilaalada deegaanka oo aad uga farxisay shaqaalaha kale ee gobolka in ayagana gacantaada ay soo gaarto oo maanta wixii ka dambeeyo ay meel yeeshaan rajaynaan intuu ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsantahay waxaan ku soo dhaweynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada waxaa jira markaan kubo oo la yiraahdo burcada qalinka oo shaqooyinka la qabtay inay suurad xumeeyaan waxyaabo qaldan ay dhowr sano ka hor sawiradood intay soo qaadaan meel soo dhigdhigaan ee wax kastoo wanaag oo la sameeyay si kale u rogaan maanta waxayna tahay farxad weyn waxaan halkaan xarig uga jirnaa saad arkaysiin warbaahintii gobolka Banaadir xarunteedii oo la casriyay طبعا warbaahinta gobolka Banaadir waa jirtay oo warbaahin shaqaynaysa ay ahayd laakiin waxay u baahneed casriyeyn xilligii hore ayaan abuurnay wadaacadii horeysa gobolka Banaadir oo yeesho xilligii hore ahayd hadda marka ma faanayo meeshaan uga tagay taalay hadaan iraahdo amba wax lagu madarin dad horaan ku dhibsaday inay yiraahdaan wax walba hadda laga bilaabo leegama horeynin markaan hadda wala shaqeeyayaan leeyahay laakiin waxay u baahneed ilaa waa inaad ictiraaftaa shaqada kale la qabtay casriyeyn ay u baahneed ana waxaan ku sameynaa casriyeyn in TV-ga gobolka Banaadir oo meel fog gaaro oo maaragtay sidoo kale idaacadda ay gaarto beejkana uu gaaro sidoo kale waxaan iyadana aan saddexdan bilood aan Xuseen Agaasim Xuseen u xil saaray in uu la yimaado wariyaasha ugu habboon ugu aqoon yahansan ugu maaragtay khibrad badan ee magaaladan joogaan ama magaalada meel ka baxsan joogaan inuu halkan ka howlgeliyo qalabkii oo u baahan yahayna waxaan rabaa salaftirkiisa inaan xujeeyo qalabka idaacadaas u baahan tahay amba TV-gu u baahan yahay waxaan u idmay inuu soo iibsan karo hortiinaan ka caddaynayaa asaana ka markhaati ah
waxaan kaloon amray waxaan kaloo halkaan ka sheegayaa hay-ad nagu taageertana ma jirta ee dowladda hoosaa qalabkaas soo gadato maal gashatay wariyaashana dee anigu in wax la toosiyo oo maxaan ku dhihi lahaay la hufo oo la shaandheeyo ayaan amray ciddii shaqaalaha oo waaxdan looga baahan yahay oo shaqo u qabanayso oo siduu sheegay agaasimaha la'aantooda shaqo qabsoomaynin iyo kuwa kaloo muhiim ahoo bannaanka laga keeni doonaba amba haddaba laga keenay xuquuq rasmi ah ayay yeelanayaan iyo mushaar wanaagsan oo birig mataqaanaa duruufo hore dabool haddii ilaah yidhaahdo markaan cid annaga noo shaqay hayso oo mushaar la'aan noqonayso ma jirto dhanka kale cid aan noo shaqay haynin oo aan mushaar sii karnana ma jirto raalliga naga ahaanaysaa alcadaala soo mahan markaan nimaan shaqaysan shaha male ayaa noo ah birig mataqaanaa halhays noo ah iyo slogan markaan waxaan rabnaa wixii daryeela waa halkeeda ma diidanin wixii maaragtay daryeel ah taageero ah gacansiin ah deeq ah laakiin asal ahaan de annagu waxaan nahay hay-ad oo canshuur qaato waxaan qaadnana waxaan rabnaa inaan bulshada ugu adeegno dadka adeegayaasha ahna inaan siino mushaar markaan agaasima meeshaa ma sii joogi karo qof xuquuq la'aanna cid kastoo waaxdan ka shaqayso xuquuq baa diyaar loola yahay hadday aad u yar tahayna waa soo gudbi kartaa oo ay munaasab ahayn waa loo banna waa mahadsantaha waa mahadsantaha الله يعز ما سنت ما سند انت اسكيد ما سنت مامو انت اسكيد waxa way de agaasimo Xuseen warkayga hormaray oo shaqadii warbaahintan gobolka laga rabay iyo wixii asaga ku taagsaday marka war oo wariyalkaaga hormarana saad u qaabayn kartay saad u dhigi karta ma jiro laakiin waxaan rabaa inaan sheego anigu tan ugu muhiimsan waa dhowr shay qaybna asaaba ka sheegaba koo hortay in wax qabadka guud ahaan dawladda Soomaaliya ay qabatay in bulshada loo bandhigo si gaar ah dawladda hoose xamar maamul gobolka Banaadir shaqooyinkiisa oo bulshada u haay ilaa anaga adeegayaalanahay adeega aan bulshada u qabayno in loo bandhigo anu sidoo badan waxaan jeclahay adeegaas marka asaga inuu hadlo bulshadana ay nagu qiimayso bishaan maxaa la qabtay maxaa wada la dhisay maxaa misiyaaj la dhisay maxaa ilaahay ku reeyahay magaalada la nadiifiyay in nagu la xisaabto labo wax qabadkaas in la bandhigo horta koow labo in cabashooyinka bulshada ka imaanayana la soo gudbiyo oo gobolka Banaadir laftirkiisa oo soo gudbiyo si aan uga jawaabno waxaan ka jawaabi karno wixii kalena dawladdeena aan la kaashano oo cabashada birig mataqaanaa laga jawaabo saddex kuwa waxaa jiraan markaan wariyaasha madaxa bannaanna si sharaf leh ayaan ula shaqaynaynaa mar walbana kama maaranno idaacadaan samaysana macnaheedu ma ahan inaan ka maaranno warbaahinta madaxa bannaan warbaahinta madaxa bannaan mar walba gobolka Banaadir waa ay taqaana aniga tan iyo gobolkii hore walaa maxkamadda ciidamada waliga warbaahinta madaxa bannaan ee si wanaagsan wada shaqay jirnay marka haddana waa wada shaqaynaynaa waan iskaashanaynaa marka qaarkood khibradihiina iska maarto waa ka faa'iideysaynaa haddii ilaahay ku rooyahay taasna waa halkeeda laakiin waxaan rabnaa waxaa jira markaan kubo oo la yiraahdo burcada qalinka oo shaqooyinka la qabtay inay suurad xumeeyaan waxyaabo qaldanay dhowr sano ka hor sawiradoor intay soo qaadaan meel soo dhigdhigaan wax kastoo wanaag oo la sameeyay si kale u rogaan kuwaasna de warbaahinta aan ka gaashaan ma lahayn inay gacanteena noogu jirto waay oo shaqadaasna birig mataqaan dadka runta u sheegtaan markaan arrintaa markaan casriyeynta warbaahinta gobolka waxay tusinaysaa marka ka go'naanshaha maamul gobolka Banaadir inuu hormariyo warbaahinta dee waad ogtiin marka hore waxaa la dhihi jiray waa suldada afaraad ayaa la dhihi jiray raay caamka mataqaana iclaamka hadda maanta waa koomiya ama sawaalama laga hadlayaa markaan de annaga muhiim ay noo tahay warbaahinteena agaasimo Xuseen aadan ugu mahadcelinaa dadaalkii muddada uu joogay oo ku bixiyay casriyeynta maamul wada socdo oo u leedirkeeda isaga iyo maamulkiisa la shaqeeya ka hooseeya iyo wariyaasha kulli waan baleenayaa baada saxaafadda guud ahaan waa idin salaamayaa mar rabaa mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi ta'ala